ninkan waa la mid xamar oo ka abaabulay gaarigiisa ku qaatay waxaad arag jeebadii uu qaatay indhahu ka xiray in indhaha laga xiro ka shaqeeyay meeshii uu geeyay bacmadow afku galshay waxa soo dhan uu ka shaqeeyay xukunno kala duwan ayaa mar kale laga soo saaray dhageysiga kiiska taliyo qoslaaye iyo kooxdiisa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa xukunno kala duwan waxa ay ka soo saartay taliyihii saldhigga degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir dhamme Cabdifataax Maxamed Xasan Qoslaaye iyo kooxdiisa oo mid maqana ah uu ku jiro kuwaasi oo ka wada shaqeeyay sida la sheegay dilka marxuum Abuukar Axmed Kaabax falkaasi oo dhacay 22 bishii Febraayo ee sanadkan 2024 waxaan raacsanahay waan wax raacfaan aan ka qaadanin xukunka hore maxkamadda ay ku riday xafiiska xilaalinta wax uu ka dalbanaya dhanka kalena ma jirto maadaama asigu raacfaan soo qaado laakiin kuwan kale dilkii hore inay maxkamadda lagu xukunto maxkamaddana saas ka rajeenna insha Allah kooxdan oo 16 qof ka koobna ayaa Qoslaaye waxa ku weheliyay kiiskan Dablebol Maxamed Cabdi Qoone Liibaan Maxamed Axmed oo ay maxkamaddu sheegtay in uu yahay maskaxdii ka dambeysay dilka marxuumka Xasan Maxamed Saciid Dhendhen Maxamed Cadaawi Cali iyo Yaasiin Cabdi Jaamac baaris dheer kadib xafiiska xeerlaynta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa codsaday qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan kadib maxkamadda darajada koobaad ayaa xukunno kala duwan ka soo saartay kiiskan 6 Abriil ee sanadkan 2024 balse xukumanayaasha ayaa raacfaan ka qaatay xukunnadii lagu riday kiiska waxa laga soo qaatay abiil ama waxa loo yaqaano rafcaan ayaa laga soo qaatay waxaana soo qaatay abukaatiyaasha soo qaateen abiilka maadaama kiiska hore loo galay xukunna ka soo baxay abukaatiyaasha waxaan leenahay soo jeediya asbaabaha soo qaadateen abiilka soo dhawaad maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo aqbashay dalabkii raacfaanka ahaa ay soo qaateen xukumanayaasha 10kii bishan ayaa waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwadda iyadoo ugu dambeyn maanta xukun ka soo saartay kiiskan 1 dhamme Cabdifataax Maxamed Xasan Qoslaaye iyo 2 Dablebol Maxamed Cabdi Maxamed Qoone ayay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum Abuukar Axmed Kaabax 2 Liibaan Maxamed Axmed oo maqana ah ayaa lagu xukumay xabsi daayin ah halka 4 Maxamed Cadaawe Cali 5 Yaasiin Cabdi Jaamac iyo 6 Xasan Maxamed Saciid Dhendhen ay maxkamaddu ku xukuntay min 10 sano oo xabsi ciidan ah sida uu warbaahinta u sheegay sareeyo guuto Liibaan Cali Yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida